wuxuu yidhi Joker dhoolcadee maxaa yeelay waxay dawaqinaysaa dadka waanay ka fududahay inaad sharaxdo waxa gudaha kaa gubaya haddii aad shay ku fiican tahay bilaasha ku qaban way ku qoslaan maxaa yeelay waan ka duwanahay anna iyagan ku qoslaa maxaa yeelay dhammaantood way isku wada eegyihiin qalinku dhab ahaantii wuu ka awood badan yahay kelmadda waxaan u malin jiray inay noloshu tahay masiibo balse imika ayaan ogaaday in ay maad ahayd markay kula dhaqmaan si kaftana aadna uga dhaqaaji si qosol markaad ku beddesho fikradahaaga xunxun fikro wanaagsan waxaad heli doontaa natiijo fiican ku hareeray naftaada dadka wanaagsan waxaad noqon doontaa qof wanaagsane beddel fikradahaaga waxaad beddeli doontaa kelmadahaaga beegso dayaxa xataa haddaad seegto waxaad ku digi doontaa xidigaha waxay u samaynaysaa farqi aad u weyn noloshaada markaad ahaato qof wanaagsan beddel caalamka adigoo ah naftaada ahow markasta mid jeclaada naf balse maha weji qofka ugu khatarsan waa midka aamusan ma jiro qof kaa qaadi kara xanuunka haddaba qofna ha u ogolaan inuu kaa qaado farxaddaada inta aanad weydiin sabab ma ayuu qofku necib yahay weydiin naftaada maxaad u danaynaysaa indhaha ka xanuunso balse wejiga ka dhoolcadee ha ilaawinkii ku caawiyey wakhtiyadaadii adkaa xanuunku waxa uu u qaabayaa qofka geesi ma jiro qof ka cabsanaya inuu ku waayo haddaba adigu maxaad uga cabsanaysaa in aad iyaga weydo masax xasuusaheeda sida aad u masaxdo histariga buruuserkaaga mararka qaar waa inaad dhegaysataa maskaxdaada in ka badan qalbigaaga u soco sidii aad tahay boqor ama aanad danayninka boqorka aamin waxaad danaynto maaha waxaad maqasho quruxdu waa waxaad ka dareento naftaada maaha waxaad ka aragto muraayadda waxaa jira laba qaybood oo xanuunka mid wuu ku dhaawacaa midna wuu ku beddelaa markaad isdhiibto waa markaad qof kale u ogolaatay inuu guulaysto ma ku nabci balse waxaan weeye ixtiraamkaagii maaha shaqadaada inaad jeclaato balse waa aniga tayda dooqyadaydu waa sida fingerbriedka oo kale waxay iga dhigaan mid ka duwan hadhihin laga yaabaa haddaad doonayso inaad dhahdo maya ha dhegaysan kuwa keliya arka qaladaadkaaga adigu ima fahmi doontid maxaa yeelay IQ-gaaga ayaa hooseeya u jawaab si deggan ma jiro mid ixtiraama kuwa u jawaaba sida degdega noloshu waa sida bandhig TV oo dheer kaasoo aan lahayn remote lagu maamulo dadka qaar waxay hadda jilayaan sidii inay isku dayayaan inay ku caawiyaan adiga albaabkaygu mar walba wuu furan yahay haddaba xorriyad dareen si aad u tagto hadday ku cabsi geliso waa calaamad aad uga baahan tahay in aad ku qabato hadday ku dhaawacaan ama ay ku khiyaamaan ha weydiin sabab ma balse keliya ku dheh nabaday qeex dareenkaaga maxaa yeelay noloshu way gaaban tahay innaguna ma akhrino maskaxaha mid kastaa wuu tagaa dhammaadka qaar way doorteen qaarna way ku qasbanaayeen nolosha waxa ka buuxa niyad-jab iminkana waxaan kugu soo daray liiska qof kastaa wuu doonaa inuu guulaysto balse in yar ayaa u shaqaysataa waxaan leeyahay weji badan balse adiga waxaan ku tusi doonaa midka kuu qalma waxaan u noolay habka aan jecelahay waanan jecelahay habkaan u noolahay macna male inta jeera adag ee aad isku dayday mararka qaar isma beddeli doonaan dadku ma awood badnaa balse waa adiga ka ku dhawaaqay naftaadu inay daciiftay waxaan bartay dadka in ka badan intaan jecelahay eygayga markii ujeedadada caddahay ma weydi dadka balse adiga ayay ku waayaan macna male siday xaaladda u xun tahay way isbeddeli doontaa maxaa yeelay ma jiro shay weligiisii joogaya ha ilaawin laba shay siduu qof kula dhaqmay iyo waxuu qofku yidhi samee waxaad doonayso jooji inaad diyaar noqoto dadka wakhti kasta kama guulaysan kartid cabsida ilaa aad noqoto cabsi Yeah.